Bismillaah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhyaarta sharafta leh kusoo dhawaada madasheena hoyga horumarka. Magacaygu waa Shaakir Akhyaar. Waxaan ahay samafale jecel bulshada inuu ka caawiyo inay arkaan awoodooda waxqabad si ay u noqdaan dad waxtar leh biidnillaah. Waxaa mahad iskale mawlihii meeshaan ugu kulmiyey. Marka labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo adiga oo madasheena mar kale soo booqday muuqaalkan aan leenahan ku dhuftay mahadsanid walaal. Haddaa meesha ku cusub tahayna soo dhawaaw, adigana insha Allah kama shalaayi doontid inaadna soo booqatay. Salaan soo dhaweyn iyo mahad celin kadib, waa maxay maanta mawduuca idiin wada? Mawduuca maanta idiin wada anoo dul maraayo sida kii hore inaan u qashay diidaayo waxaa ku magacaabay dhismaha maxaa ugu muhiimsan. Waa dhismaha maxaa ugu muhiimsan. Waxa la dhisayo wax laba waxay noqon karaan, macnaha dhismihii dabaqyada iyo gurigii iyo waxyaabahaas ahaay maa laga wadaa inay dadka badankood is yiraahdaan laga yaabaa, laakiin dhismaha wixii la dhisayo oo dhan oo dhismahaas guryaha bis aanan ahayn. Sida mawduucyada waxaa tusaale ahaan u soo qaadanaa aqoontoo kaleeta dhismay leedahay, diintoo kaleeta dhismay leedahay, maxaa la dhihi jiray, caafimaadka dhismuu leeyahay, xiriirka dhismuu leeyahay, sportska dhismuu leeyahay, ganacsiga dhismuu leeyahay. Kulligood dhismay leeyihiin. Dhismayaashaas oo dhan waxaa jiro wax muhiim ah ay wadaagaan, iyo nolosha mawduucyo kaleeto ka mid ah wax muhiim ah ay wada wadaagaan kulligood, oo haddaysan waxaas hagaagsanayn ama aysan fiicnayn ama aysan si fiican u dhisnayn, aysan mawduucan ama nolosha macnaha qaybtan aad tusaale ugu soo qaadan aqoontoo kaleeto, xiriirkoo kaleeto ama caafimaadkoo kaleeto uusan meel dheer gaaraynin ama guul aan laga gaaraynin ama cimri dheer aysan yeelanaynin. Waxay ka wada siman yihiin marka waxaa waaye, haddaa anigoo waxba idinku daalinayn idiin sheego, waxay ka wada siman yihiin waxaa waaye aas-aaska. Mawduucyadaas aan idiin sheego kulligood waxay ka wada siman yihiin aas-aaska. Haddaysan aas-aaska ka dhisnayn, guriga taqaanin adinka ahaan, guriga hadduusan aas-aaska ka dhisnayn, tusaalaha koobaad guriga haddaa usoo qaadano, aas-aaska guriga waxaa taqaaniin agtiina laga yaabaa boos inuu ka bannaan yahay guri laga dhisayay. Maalin kasta qayle iyo buuq iyo qaraac iyo wiishaa maqlaysiin, laakiinse waxba uma jeediin. Gurigii meeshii dabaq lagama taagayo oo waxba ilaa hadda looma jeedo. Maalin kasta godaa la qodaa, dhagxaana la waxeynaa, ilaa haddeer wax dhisman uma jeedin. Bilo kadib ama usbuucyo kadib waxaa arkaysiin aas-aas yar oo meel wax yar ka soo jeedo. Bilo kadib haddana usbuucyo yar kadib waxaa arkaysiin gurigii oo dhan oo wada taagmay. 3 bilood meeshii laga wada sugayay in aas-aaskan la dhiso oo maalin kasta shaqo la wada aadna wax la arkin, haddeerna waxaa dhacday muddo yar gudahood inaad guri dhan oo taagan ku aragto. Maxay muhiimadda waxaa waaye, dadkan waxay ku mashquulsanaayeen ay xoogga saareen gurigan aas-aaskiisa si uu u noqdo guri taagnaan karo oo dhisnaan karo si uu ahaado. Waxaasoo shaqo ah 3 bilood oo lasoo dhaafay waxay gelinayeen aas-aaskan. Maxaa yeelay aas-aaska hadduu adag yahay guriga intiisa kaleetana aas-aaskaasaa celinayo. Aas-aaskaasaa celinayo. Marka tusaalaha guriga marka intaas uga baxno, aqoontoo kaleeta haddana tusaale idinku soo qaadanaa. Aqoonta waa maadaama muslimiin diinta aan ku bilaabano, diinta quraanka qofka ma baran karaa hadduusan alfabeetadii aqoonin. Alfabeetadii ama higaadi hadduusan aqoonin, oo alif waxmaale alif kardhabi hadduusan aqoonin qofkii, kitaabkii quraanka ma akhrin karaa? Waa maya, ma akhrin karo. Maxaa yeelay aas-aaskii aa ka maqan qofkan. Aas-aaskii aa ka maqan oo hingaadi ma yaqaano. Hadduusan hingaadi aqoon, qul acuudu birabbi-naas ma akhrin karaa? Maya. Suuratu-naas ma akhrin kara. Maxaa yeelay hingaadi aa ka maqan. Hadduu suuratu-naas asoona ka diyaarsanayn, birabbi-naas iyo birabbil-falaq asoo baran, baqaraa iska tuura hadduu dhaha ka waran, ayadana faa'iido weyn ma lahan. Maxaa yeelay aas-aaskii aa ka maqan qofkan oo warcad ama wax fiican guul weyn kama keenayo. Iskoolka sidoo kaleeta ayadana waxaa lagu bilaawdaa alfabeetaa lagu bilaawdaa ba ta ja. Hadduusan qofka aqoonin dugsi sare ma ka bixi karaa? Waa maya. Ba ta jaadi inaad soo baratid waaye. Marka koobaad 1 2 3 inaad baratid waaye. Magacaaga inaad qori kartid waaye. Ilaa ay 100 inaad tirin kartid waaye. Kadib aa xoogaa iskoolka iyo meelahaas kaleeto haweysan kartaa. Laakiinse adigoo fasalka koobaad macnaha magaca sida loo qoray iyo aadan ku baran meel dheer ma haweysan kartid. Saas darteed marka aas-aaska hingaanta ama alfabeetada ama 1 2 3 aqoonta ayadana taasa aas-aas u ah. Caafimaadka oo imaan. Caafimaadka maxaa aas-aas u ah? Waxaa qofka biyo inuu cabo waaye. 4 bari biyo la'aan ma noolaan kartid. 4 bari kadib macnaha biyo la'aan waxaa la dhahaa qofku wuu dhimanaa. Maxaa kaleeto ku xigo? Hurdada waaye. Hurdada waxaa la yiraahdaa 10 bari kadib hurdo la'aan waa dhimanaysaa. Cuntada kuu soo harto. Cuntada 60 bari ay qaadataa. 60 bari qofka hadduu wax cabo laakiinse 60 bari uusan wax cunin lama yaqaano. Laakiinse tijaabooyinka macnaha inta la sameeyey waxaa lagu leeyahay ilaa iyo 60 bari ay qaadan kartaa. Marka aas-aas waxaa u ah maalin kasto inaad biyo cabtid, inaa maxaa la dhihi jiray hurdo aa seexatid, inaa xoogaa yar aa cuntid,
cadayga sidoo kaleeto caafimaadku ka mid yahay. Haddaadan ilkahaaga habeen kasta ama maalin kasta wax kasta aadan cadaynin, ilkahaaga macnaha isku mid ma ahan. Qof caafimaad qaba ilkihiisa ma lahaanaysid. Waxaa kaleeto oo ka mid ah cadayga, biyaha, hurdada, cuntada, intaas caafimaadka ugu soo gudubna. Dhaqdhaqaaqa sidoo kaleeto asagana wuu noqon karaa. Haddaadan dhaqdhaqaaqin oo 24 saac sariirta aad jiiftid oo waxna aa cunaysid, maalinta dambeeto waxaa waaye caafimaadkaaga wax weyn aa ka dhiman maadaama jimicsi aadan sameynin oo jikada iyo jiifka inta u dhexeysa xataa soco lagu kari waayo. Midka ku xiga, tusaalaha ku xiga waxaa waaye xiriirka. Ama xiriirka saaxiibtinimada ha ahaado ama xiriirka labada qof oo guriga dhisatay ka dhexeeya ha ahaado. Xiriir kasta waxaa jira aas-aas yaryar uu ku dhisan yahay. Xiriirka macnaha aas-aasyada yaryar waxaa ka mid ah salaanta oo kaleeto. Qofka xiriirka idinka dhexeeya qof saaxiiba aad tihiin oo idin is-salaameyn ka war, saaxiibtinimadiin intee la eg sii jiraysaa. Haddaa qof xiriir idinka dhexeeya aad tihiin oo macnaha guri laba qof oo isqabo guri isla degan aad tihiin, laakiin idin is-salaameyn ka war, xiriirkeena gurigiina meequu sii dhisnaana. Dhoola caddeyn iyo waxaas haddaysan ka jirin ka waran gurigiina ama isla hadal uusan ka jirin, gurigiina meequu sii dhisnaana ama saaxiibtinimadiina meeqay sii dhisnaanaysaa. Mahadsanid haddaanan laga aqooninba ka waran. Mahadcelinta macnaha inaa mahadsanid annaka badanaa laga yaabo Soomaalida qaarkood xoogaa mahadsanid way dhibsataa, laakiinse mahadsanida wax qaldan ma aha. Qofka mahadsanid xoogaa inaa ugu mahadceliso ama afki ahaan uga dhawaaq oo mahadsanid dheh, ama calaamad muuji oo si kaleeto calaamad ku muuji qofkan inaa uga mahadcelinayso asxaankaas yaroo kuu sameeyey, wanaaggaas yaroo kuu sameeyey, waqtigaan yaroo kula qaato, waxay rabtaba ha noqoto. Laakiinse calaamad yar oo mahadcelin ah inaa qofki u sameyso waa jisaarka Ilaahay ma jeclo, aadanahan ma jeclo. Qofkii asxaan yar hadduu intuu kuu sameeyo oo qofkii weji xun adigoo ku fiirinayo ama si fiican ula dhaqmi aa kasii dhaqaaqdo, maxaa u malaynaysaa qofkaas maalin kaleeto ku sameyna asxaan. Dadka qaarkood oo maasha Allah aadka u fiican laga yaabo inay asxaan ku sameeyaan, laakiinse dadka badankood kuma sameynayaan. Maxaa yeelay qofkan weji xun aa kula dhaqantay maalintuu asxaanka kuu sameeyey kadib, mahadcelin warkeeda iska dhaafay. Marka xiriirka waxaa ka mid ah arooskaa ka mid ah. Arooska oo kaleeto gurigii maalintii aa aroosaysa waxaa fiican gurigaaga inaad ku dhisatid waxay diinta waafaqsan tahay iyo waxa dhaqanka waafaqsan yahay. Laakiinse haddaa muusiig iyo tumasho iyo macnaha dad kaleeto qancintooda iyo boodbood iyo nafta waxay jecleed aa ku dhisatid gurigaaga sidii dhismay haddaa aa kasoo hadalnoo kaleeto aas-aaskiisa intaas lasoo dhisayay maadan u dhisin oo gurigaaga waxaa ku dhistay burciid iyo bulkeeti adoo ku dhista camal waayo gurigi. Maadaama aa gurigaaga maalinta ugu muhiimsaneed oo la dhisayay udbaha loo taagay udub dhexaadkiisa uu ahay wax fiican oo diinta waafaqsan inaa ku dhisto aa ku dhisi weyso oo baashaalka iyo dadka waxay ka jecel yihiin ama naftaada ha lagaa sheegay aa ka dooratay hana iga raali noqdaan. Adi guryaha wixii oo dhacay way dhaceen. Gurigii oo dhismay wuu dhismay, Allaha badbaadiyo waxay noqotaba macnaha haddii guryo saas ay ku dhismay ay jiraan. Laakiinse dadkaa la hadlaya ani waxaa waaye dadka dhalinyarada ah oo aan weli ilaa hadda aan guryaha dhisanin. Dadkaas waa dadkaa raba inaa la hadlo, macnaha laga yaabo waa in la isku dhibsadaa laga yaabaa. Laakiinse aniga meeshaan inaa dadka qanciyo uma soo gelin ee waxaa waaye danta guud inaan ka hadlo aa u soo galay iyo waxan danta noo ah. Marka waxaa idinkula dardaarmaa guriga as-aaskiisa habeenkaasuu bilowdaa. Habeenkaas inaada dhihin waa halka habeeno adduunyada ku leedahay. Halka habeeno adduunyada ku leedahay guri islaamaada dhisin haddaa muusig iyo macnaha tumasho iyo dad qaawan in isdhex galaan aa ku dhistay gurigaaga ee guri islaamaada dhisin waxaa dhistay guri shaydaan. Shaydaan gurigiisa inaad dhisaysid iyo guri maxaa la dhihi jiray islaam inaad dhisaysid qofka inuu kala doorto laga rabo. Marka waa adiga waay. Waxaan ku waxaysan kartid waxaa waa asxaabtaada iyo dadkaan aan qanci leedahay gurigaaga hadduu dumo waxba kama gelin. Waxayba dan ugu jirtaaba inuuba dumaba si aa aroos kaleeto iyo boodbood kaleeto iyo baashaal iyo hilib iyo bariis loogu dhigo mar kaleeto haddana ee kuu soo booqdaan ee gurigaaga taagnaashadiisa qofka ay danta ugu jirto waa adiga. Insha Allah marka waxaa ku dadaashiin aas-aaskaasna si fiican in loo waxeeyo. Tusaalaha ugu dambeeyo waxaa kusoo qaadanayno sportska waaye. Ganacsiga waa ka boodayna ama waa idin dulmari karaa. Waxaa waaye ganacsiga qof fiican inaa wax ku darsatid oo kaleeto. Haddaad qof fiican wax ku darsanin waxaa waaye ganacsigaagii qofkii laba wax intuu isdaba mareeyo waxaa laga yaabaa in oo adigana hadhowto meel cidla ah soo istaagto. Ama waxaa laga yaabaa xisaabiyaadkii oo kaleeto gacan waxa kusoo galayo iyo waxa kaa soo baxaya dukaankaaga inaadan aqoonin. Bilowga hadday wax badan kusoo galaan laakiinse wixii kusoo galaya iyo waxa baxaya aadan aqoon. Maalinta dambeed adigaa deen lagugu yeelanaa dukaankaagina sidaasoo ku kaca. Marka ganacsiga taasaa uga baxaynaa. Sportska tusaale yaroo ugu dambeeya ah idin soo qaadanaa. Marka sportska laftirkiisa aas-aas uu leeyahay. Sportska hartid samee banooniga Soomaalida ku badan tahay ama kubadda cagta waxaa u taqaaniin
ee Soomaalida ku badan tahay. Banooniga oo kaleeto kooxaa tagi, kooxda markaa tagi waxaa waaye markaa kooxda soo gelaysa adi horta yaraantay ku fiican tahay, yaraanta waa lagu soo traineynaa, laakiinse maalintaa tagtid xataa trainingkaaga iyo waa lagu baroobeynaa. Banooni keligaa inta ma arkin oo meesha inaad banooni dheeshaa u tagtay. Markaa meesha tagtid waxaa lagu leeyahay banooni warkiisa iska dhaaf horta hore garoonka kusoo wareegso. War aniga banooni inaa idheelaa meesha u imaaday garoonka inaa ordamaa u imaado. Soo wareegsaa lagu leeyahay 10 daqiiqaa soo wareegaysaa. 10 daqiiqo garoonka markaa saas ugu soo wareegtid maxaa laga wadaa marka 10 daqiiqo oo soo waxeynaysid aas-aaskaaga yaa la dhisaa. Maxaa yeelay jirkaaga inuu kulaado waayo. Baabuurka asagoon furaha lagu rogin matoorkiisa la kicin hal mar hore ma ka xawaareyn karaa asagoo qabow oo dansanoo meel iska fadhiyo? Waa maya. Marka jirkaaga matoorkiisa yaa la kicinaa. Iskuleyska inaad samaysid qasab ay kugu tahay. Iskuleyska yaa samaysa banooni la'aan maxaa la sameynaa haddana 10 daqiiqo kaleeta banooni lagu dhiibaa. Haddana waxaa lagu leeyahay banoonigaasi adiga ari camal u raac banooni dabagal banooniga dabagalaysaa iyuuna kaa cararin aadna iskugu soo dhawaan jagaa siinaysaa banooniga. Marka waxaa saas u dabagelaysaa keliya. Mid tilaabada ku xigta waxaa waa adiga iyo qof kaleeto waa lagu soo baasaa waa controle qofkii aa u celina waa lagu soo baasaa waa controle qofkii aa u celinaysaa. Aas-aaska banooniga marka saasaa lagu dhisaa. Hadhowti maalinta ciyaar la gaaro 3 bilood ugu horeysa inaad ciyaarna laga yaabaa. Macalinka cunsuri waa dhihin haddaa wadamada ajnabiga aad joogtiin cunsurnimo maahan aas-aaskaaga la dhisaa. Marka kadib waxaa laga yaabaa maadaama aas-aaskaaga la soo dhiso maalinta ciyaarta lagu geeyo wixii oo dhan automatic u sameynaysaa maadaama aas-aaska iska soo dhistay aa soo baratay. Laakiinse adoo aas-aaskaaga dhisnayn 20 jir oo meelahaas ka yimaaday haddaa rabtid ka warran ciyaartaada koowaad double inaad dhalisid ma dhalin kartaa? Maya, dhabarkaa ka jabaysaa. Sababta waxaa waaye aas-aaskaaga ma dhisno. Adoon aas-aaskaaga dhisnayn oona soo training garayn oo hoosta kasoo bilaabina waxaa rabtaa meesha ugu sarreysay inaa oo double dhalin iyo gool isku darsatid. Macquulna ma aha, dhabarkaa ka jabaysaa. Marka aas-aas kasta muhiim waaye. Dhabarka intaada ka jabin marka horeeto tilaabooyinka yaryar iska adkay. Tusaalaha ku xigoo kaleeto waxaa waa ayadana sidoo kale orodka markaa tagay. Orodka waxaa la yiri meeshii orod fakatax iyo nin qatara isku mooday. Marka waxaa la yiri horta horeeto sida loo socdo sida loo ordo in lagu baro waaye. Tilaabo kale hadduu qofka hor dhigi karin ma socon karaa? Waa maya. Alxamdulillah laakiin socodka waa soo barna waxaan kalena automatic waaye. Laakiinse technigeena maxaa la dhihi jiray tacticadeena iyo maxaa la dhihi jiray stylekeena adiga dharka kaliya styleka iskama sax. Laakiinse orodka laftirkiisa style uu leeyahay. Styleka in lagaa sax waa marka waxaa waaye gacanta bidix markaasaan u qaadaysid jilibka midig inaa kor u qaadid waaye. oo gacanta bidix iyo jilibka bidix hal mar kor hadda islu qaadid waxaa waa adigiyaab isdabraaya oo jilibkaagiyaa xusuleynaysaa. Orod mees maba jiro marka isdhaaf waa markasto gacanta midig markaasaan dhahdid jilibka bidixaa kor u qaadaysaa. Markaa gacanta bidix saan suxurkeeda kor u qaadid jilibka mid aa kor u qaadaysaa. Waxyaabo sidaas oo kaleeta ahaa lagaa dhisaa aas-aaskaaga si uu ma arkin oo istaalkaaga u saxmo orodkaagana wax yar oo faa'iido leh uu u noqdo. Haddii kaleeto waxaa waaye ma saxno istaalkaaga ma saxlo qofaa istaalkiisa saxnayna meel dheer ma gaarayo tartanna warkiisa iska dhaaf. Waxaa basketballka oo kaleeto waxaa tusaale la weydiiyey Kobe Bryant in la dhaho hadeer dhintay. Basketballka dadka ninka ugu fiicnaa ahaa intuusan dhiman. Waxaa la weydiiyey qofaa wuxuu arkay asagoo traineynaya aas-aaska hadeer idiin sheegaya baaska iyo kubad qabashada iyo wareegitaanka asagoo traineynaya marka waxaa la dhihi ciyaaryahanka adduunka ugu fiicanaa tahay. Waa maxay sababta u traineynaysa marka waxyaabahan yaryar oo aas-aaska ah? Maxaa u malaynaysaa u dhaha maxaa sidee ku noqday ciyaaryahanka adduunka ugu wanaagsan? Waxaa ku noqday u dhahay maadaama aanan ka caajisin in aan aas-aaska maalin kasta aad traineeyo kama caajisin. Wuxuu kacaa 9 saac iyo bar habeenimo kacaa aas-aaskii uu traineynaa oo waxaa waa wixii yaraa baaska iyo banooniga dhulka lagu dhufanayay iyo waxaas bes uu traineynaa waana ciyaaryahanka adduunka ugu fiican. Marka wuxuu dhahay maadaama aas-aaskii waqtigaas dheeraadka ah aa geliyo sidaas darteed aa ku noqday ciyaaryahanka ugu fiican kamana caajiso. Macnaha aas-aaska dadka qaarkood markay wax bartaan haddiiba macnaha way ka caajisaan ee waxay rabaan meel kaleeto dheer oo kasii ka sareysa inay u tagaan. Laakiinse aas-aaska maadaama aanan ka caajisin waa midaasuu yiri sababta keentay in aan noqdo ciyaaryahanka adduunka ugu fiican. Marka qodobka sharaxaad iyo tusaalaha ahay intaas ay u gudbaynaa. Waxaa u gudbaynaa qodobka labaad ugu dambeeyay oo ah qalabkii sidaa nooga barateenba qalabkii aas-aaskan aa ku dhisan lahaydeen. Qalabkii aad aas-aaskan ku dhisan lahaydeen 4 qodob waaye oo yaryar sharaxaadooda macnaha kuma sii dheeraan doono maadaama aa wada taqaaniin. Qodobka koowaad waxaa waaye sida
si fiican uga fikir. Horta marka go'aanaa rabtaa inaa qaadato aas-aas waxaa dhisaysa waa aas-aas. Marka go'aanaa qaadan rabtaa, go'aanka si fiican inaa uga fikirtid waaye. Si fiicanaa uga fikiraysaa, dhinacyo badanaa ka fiirinaysaa. Qof khabiir ah oo arrimahan kaaga xeelad dheeraa la tashanaysaa. Kadib 3 habeenaa u seexanaysaa. Xataa go'aanka markaa qaadatid maalinta 1aad, maalinta 2aad, maalinta 3aad, marka 1aad dareenkaaga wuu sareeyaa. Waxaa laga yaabaa degdeg inay kugu jirto wixii in hadiiba ka miro dhalisid aad rabtid. Laakiinse maskaxdaada deji, xisaabtan, habeen u seexo, habeen 2aad u seexo, habeen 3aad u seexo. Intaas samee. Qodobka 1aad waa midaas. Qodobka 2aad waxaa waaye tilaabooyin yaryar qaad. Tilaabo yar qaad, ha ka caajisin tilaabooyinka yaryarna. Tilaabo yaraa qaadaysaa, haddana mid kale aa ku daraysaa, haddana mid kale aa ku daraysaa. Tilaabo yar markaa qaad maxaa waaye qodobka 3aad aa kuu imaanayo. 3 waxaa lagaa rabaa sabar. Tilaabada yaraad waa qaadaysaa, natiijo ma arkaysid. Aas-aaska marka la sameynayo maxaa la sameeyaa? Dhagax yaraa la saaraa, godaa la qodaa horta horeeto. Dhagaxaa la saaraa, haddana dhagax kale la dul saaraa, haddana dhagax kale la dul saaraa, haddana dhagax kale la dul saaraa. Ilaa iyo uu markii dambeeto aas-aaskii wax adag uu ka noqdo. Marka tilaabooyinkaas yaryar iyo dhagaxaas dhagaxa la dul saaraayo ha ka daalin. Ugu dambeynta waxaa waaye marka rajada. Qofka inuusan rajo dhigin. Midka 1aad sabar, midda 3aad sabar ay ahayd. Tan laakiinse waa sabarka iyo rajada waa iska agdhow yihiin. Laakiinse wax kala duwan. Waxaa laga yaabaa adigoo sabraayo haddana rajo inaadan lahayn, ama markii dambeed ay rajada kaa dhimato oo wixii kuu soo dhow aad ka tagtid. Oraah Jarmal macnaha tusaale igu soo rideen midaas oo mahmaahyada Jarmalka ka mid ah oo ay dhahaan Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt waxaa laga wadaa rajada waxa dhimanaya waxa ugu dambeeya waxaa waaye rajada waaye. Rajada hadday kaa dhimato macnaha qof nool ma tihid, ama wixii maba noolid. Maxaa yeelay wixii aad gaari lahayd rajadeedii aaba kaa dhimataba. Inaa gaarayso uma moodidba. Marka waxaa samaynaysaa meelaa iska jiifanaysaa oo meelaa iska fariisanay. Qodobkaasaan ugu dambeeyey. Intaasaan kusoo gabagabeynaynaa. Hal codsiyo waxaa wataa marka la xiriiro mawduucan aas-aaska ah. Haddaa muuqaalkan aad fiirsanaysid 2022 waxaa waaye waxaa ka mid tahay dadka kanaalkan aas-aaskiisa nagala qayb qaatay. Marka laakiin waxaa isweydiiyey dadka yaa waaye dadka Instagram akhyaar iigu xirnay igala socotaa jirto. Ma akhyaartaas miyaa? Ma ahalkii iyo dadka istaqaaniin iyo qaraabadii iyo dad deris oo isku dal joogtiin miyaa? Mase dad cusub waaye. Marka saas darteed macnaha waxaa kaa codsanaa haddaad dadka horay Instagramka iyo dadka deriska nahay iyo ehelkii qaraabada aad ka mid tahay, commentiga waxaa waaye number 1 qadiimiya iigu qoraysaa. Haddii aad dadka cusub tahayna maasha Allah cusubaa iigu qoraysaa oo lambar 2 ah. Waana kaaga mahadcelinaa inaa i siisid macnaha jawaab celintaas. Waa ku mahadsan tahay. Ugu dambeyntii marka waxaa idin leeyahay sidaa ku dardaarmi jirnaba. Kulantadii intaan ku xigtay intaan ku kulmeyno, ama muuqaalka kan ku xigay intaan ka kulmeyno, waxaa idin rajeynaa nabad iyo naxariis, cimri dheer, caafimaad iyo cibaado suuban. Balanteenu ah Raadsan Reeb.